wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ahna gusimaha wasiirka wasaaraddaasi Liibaan Yuusuf Gaaxnuug oo weheliyaan agaasimaha waaxda siyaasadda wasaaradda Cabdiqani Axmed Xasan Goole iyo madaxa dalalka Carabta wasaaradda arrimaha dibadda Fahmi Qaasim Maxamed ayaa deeq ay soo dirtay dowladda dalka Masar ku wareejiyay Aamina Maxamuud Diiriye oo ka tirsan xafiiska diiwaanka sekada oo hore uga tirsanayd xafiiska samafalka madaxtooyada munaasabadan ka dhacday xarunta imtixaanaadka qaranka oo kayd loo dhigay deeqdan oo ka koobnayd 4 konteenar oo isugu jirtay buskud caano iyo dawooyinka lagula tacaalo xaaladaha degdega ee ka dhasha abaaraha oo ay ugu tala gashay dowladda dalka Masar iyadoo ku soo hagaajisay wasaaradda arrimaha dibadda deeqdan waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Gaaxnuug oo halkaasi ka hadlay deeqda ay ku wareejinayeen xafiiska diiwaanka sekada Soomaaliland ayaa tilmaamay xidhiidhka qotada dheer ee ka dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo Masar wuxuu ka warramay wasiir ku-xigeenku hanaankii ay deeqdan u timid iyo sidii loogu soo hagaajiyay wasaaradda halkan waxaan runtii uga mahadnaqaynaa dowladda Masar oo xiriir qadiimi ay leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland horena u lahaayeen iminkana ay leeyihiin runtii waxaan uga mahadnaqaynaa mucaawino ay soo gaarsiiyeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay soo mariyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga sidii Aamine ay hore u sheegtay dowladda Masar waxay mucaawimadan oo ka koobnaa 4 konteenar oo 40 feet ah oo iskugu jira cunto iyo dawo ay ugu tala galeen dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u baahan caawimada runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa caawimada mugga leh ee nooga timid dowladda Masar ujeedada maanta aan halkan iskugu nimid anaga iyo hay'adda samafalku waxa weeyaan in mucaawimadan aanu ku wareejino hay'adda samafalka si ay iyaguna ugu sii wareejiyaan meelihii kale ay khuseysay ama isbitaalada ama xarunta agoomaha ay u xil saarnaayeen runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu u mahadnaqaynaa dowladda Masar oo xiriir wanaagsan oo soo jireen ah oo diblomaasiyadeed oo walaaltinimo ay leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadna waa u mahadsantihiin waxaananu leenahay Aamina iyo xafiiska samafalka mucaawimada arkaysaan runtii naga gudooma waana la soo mariyeen anaga cidii lahayd shaqadaasi waa idinka Aamina Maxamuud Diiriye oo ka socotay xafiiska diiwaanka sekada Soomaaliland ayaa iyaduna aad uga mahadnaqday dowladda dalka Masar deeqdan 4 konteenar ee isku jirtay buskudka iyo dawooyinka iyo caanaha ee loogu tala galay dadka reer Soomaaliland xilliga ay jiraan abaaruhu waxayna ka gudoontay deeqdan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Liibaan Yuusuf Gaaxnuug بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسير كحيانك وسارد أرمها دبدة فهمي وكم ذا حفيزك أرمها دبدة عبد الرحمن ومدحتوي ذا دمان هاد نقيا هل كان واحد ما أنت وتشوقنا المعاونة إن سوق جارسيان ذلك مصاريدة كارهان سفير كأوفرديا مصاريدة waxaa hawshan nala soo socodsiiyay Fahmi oo kamid ah saraakiisha arrimaha dibadda aad iyo aad baan wasiirka iyo Fahmi iyo arrimaha dibadda oo hawshan iyaguna hawl weyn ka galay si ay noo soo gaarsiin lahayn hadaan nahay samafalka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa mucaawinadan waxay ka kooban tahay sida aragtaanba kartoonada waxa ku jira caaniga caruurta yar yar beans waxyaabaha nafaqada lahaa waxa kale oo iyaguna jira dawooyin aad iyo aad u fara badan oo dawooyin manfac leh ay iyaguna soo direen dalka Masaarida iyo safiirka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa mucaawinada ayna soo gaarsiiyeen hawshana ay aad iyo aad uga shaqeeyeen Fahmiyo arrimaha dibadda Cabdiraxmaan oo madaxtooyada Cabdiraxmaan Saqadhiyo runtii hawsha u weyn ka galay sidii hawshani ay u soo gaari lahayd halkan wasiirka aad iyo aad baan uga Liibaan aad iyo aad baan isna uga mahadnaqayaa